madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo dhagax dhigii uu dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo ay yeelanayso daladaasi gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Sonyo Mubaarig Ismaaciil Taani ayaa sheegay in dhismaha madaxweynuhu dhagax dhigay uu noqon doono mid wax weyn ka tari doona guud ahaan baahnaanu socodka hawlaha dalada ee dhalinyarada waxaana hoggaanka daladu madaxweynaha ku bogaadiyeen sida uu markasta uu ugu hamiyayo horumarinta dhalinyarada Soomaaliland una barbar taagan yahay maalintii shalay ayaa ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelanayso dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa sharaf weyn kugu haynaa dhalinyar ahaan inaad maanta dhulkii aad baroosaysa qaranka aad joogto oo aad weliba dhismihii dhalinyarta qaranka ay yeelan lahayd aad u dhisayso oo aad maanta dhagax dhigayso aad baan hadda kugu haynaa oo ka mahad celinaynaa dhalinyar ahaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa runtii waa abaal weyn oo taariikhda ku galay oo dhalinta reer Soomaaliland oo dhan aad u dirtay fariin ah inaad tahay haliyey iyo mas'uul qaran oo u heegan horumarinta dhalinyarta qaranka alxamdulillaah rabbil caalamiin ada ilaahay kugu guuleeyay inaad dhulkii siiso maantana aan dhagax dhigno oo aad dhagaxii dhigto ku soo dhawaay madaxweyne aad bay qiimo iyo qaanoolo leeyihiin dhalinyarada dalku waa mustaqbalkii ay dalka weeye dhiirigelintooda waxqabadkooda waxyaabaha ballan qaaday ka mid maanta waxa farxad weyn ah inaan maanta xarunta dhagax dhigno insha Allah taala waxaan noqon doontii aan ku guuleysan insha Allah